soo dhawaada xubinta caafimaadka ee barnaamijka caawa oo aan idinku hayno qodob aad iyo aad xasaasi ah muhiimna u aha waana qodob ciwaankiisu yahay haddaad dhafarto habeenkii xal ayaa lagu hayaa. warbixintu waxay ku bilaabanaysaa sidatan: waa inaad wax ka bedesho sida aad habeenkii u seexato. taasi waxay hagaajin kartaa qaabka uu jirkaaga u shaqeeyo iyo caafimaadkaaga sida ay sheegeen saynisyahanada UK iyo Australia. waxay diiradda saarayaan dadka dhafra ee jirkooda uu la qabsaday in ilaa xilli dambe ay soo jeedaan. farsamooyinka la adeegsaday waxaa ka mid ah in xilli isku mid ah la seexdo habeen kasta, in laga fogaado cabitaanada hurdo la'aanta keena iyo weliba in subaxii la isqorraxeeyo. baarayaashu waxa ay sheegayaan in qaabka ay wax u baarayaan uu u muuqan karo mid iska caadi ah, laakiin isbeddel aad u muhiim ah uu ku yeelan karo nolosha dadka. qof kasta wuxuu jirkiisa leeyahay qaab uu u shaqeeyo oo la socda qorrax soo baxa ama qorrax dhaca, waana sababta aan habeenkii u hurudno. balse dadka qaar jirkooda soo jeedka ayuu jecel yahay marka loo eego dadka kaleete. damaashaadka subaxii waa in xilli hore la tooso, daalna la dareemo haddii ilaa xilli dambe oo habeenkii yaha la soo jeedo. dadka dhafra way ka duwan yihiin sidaas, waxay jecel yihiin inay sariirta iskaga jiifaan ayna soo jeedaan iyaga oo firfircoon ilaa xilli dambe. dhibaatada dadka dhafra haysata waxa ay tahay inaysan la qabsan karin xeerka caalamigaha ee 9 ilaa 5 ee alaarmiga subaxii lagu tooso saacad ka hor inta uusan jirkaaga u diyaar noqon in aad sariirta ka kacdo. in habeenkii la dhafro waxaa lala xiriiriya caafimaad darro. saynisyahanada waxay cilmi baaris ku sameeyeen 21 qof oo habeenkii oo dhan aan seexan, kuwaasi oo qiyaastii 8 ama 2 iyo barka habeennimo ee saqdhexe kadib seexda, hurdadana ka toosa 10 barqanimo. haddaba talooyinka ay soo jeediyeen saynisyahanadan ayaa waxaa ka mid ahaa qodobada soo socda: waxa aad toostaa 2 ilaa 3 saacadood ka hor xilligii aad kici jirtay, bannaanka u bax, qorraxdana isu dhig subaxii. sida ugu dhaqsiyaha badan u qureeco subaxii oo keli ah, samee jimicsi. maalin kasta isku xilli cun qadada, waxnaha cunin wixii ka dambeeya 7 fiidnimo ee habeenkii. kafee iyo wax la mid ah cabbin wixii ka dambeeya 9 galabnimo. ha seexan mar haddii la gaaro 10 galabnimo. waxaa seexataa 2 ilaa 3 saacadood ka hor xilligii aad seexan jirtay, iftiinka nalkana iska yaree. mar kasta xilli isku mid ah seexo, xilli isku mid ahna soo toos. 3 isbuuc kadib dadkii tijaabada lagu sameeyey isbeddel weyn ayaa ka muuqday sida uu jirkooda u shaqeeyo, sida lagu xusay warbixinta wadajirkaha ee ay soo saareen jaamacadaha Birmingham, Surrey iyo weliba Monash. natiijada joornaalka waxaa ka muuqatay in dadkaasi ay barteen in xilli isku mid ah indhaha ay isku qabtaan ayna hurdaan, laakiin waxaa la arkay in hurdo la'aantu ay yaraatay, walwalka iyo walbahaarkana ay ka yaraadeen. sidoo kale natiijadu waxa ay muujisay in sida ay u falcelinayaan ay wanaagsan tahay. jadwalka dabeecad yar oo fudud waxay dadka dhafra ka caawin kartaa in qaabka jirkooda uu u shaqeeyo ay bedelaan, ayna wanaajiyaan guud ahaan caafimaadkooda jirka iyo maskaxda, sida uu sheegay Professor Deborah Skin oo ka tirsan jaamacadda Surrey. hurdo la'aan xun iyo soo jeedka jirka waxay dhibaato u geysan karaan hanaanka jirka, waxayna sababi karaan cudurrada wadnaha, kansarka iyo weliba xanuunka macaanka ama sonkorowga. mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee jirka u adeegsado ee isku dibridda quruxda waa iftiin, balse waxaa lagu talinayaa in jirka iftiin badan loo bandhigo maalintii, habeenkiina aad looga yareeyo. in aad si aan dheelitirnayn u seexato iyo inaad toosto xilliyo kala duwan waxay sababi karaan in caafimaadka gudaha jirka iyo weliba sida uu u shaqeeyo ay halis galaan. farsamooyinka la adeegsaday waxay la mid yihiin waxyaabaha iska caadiga ah ee hurdada la xiriira, balse mid kasta waxaa loo isticmaalay hagaajinta habdhaqanka jirka. waxa aysan cilmi baarayaashu garanaynin waa xiriirka ka dhexeeya dhafarta badan inay ka dhalato isbeddelka dabeecadaha. waxa aan kala caddayn waa marka aadan habeenkii oo dhan seexan karin. wax kastoo arrintaasi ku saabsan ma samayn kartaa, ayuu yidhi Dr. Andrew oo ka tirsan jaamacadda Birmingham. waa arrimo fudud oo qof kasta uu samayn karo oo wax ku ool aha, waana arrinta aan la yaabay inaad awood u yeelato dad badan oo aad xulato kana caawiso in ay wanaag dareemaan adiga oo aan dan kale ka lahayn. waa arrin aad u fiican. intaasina daawadayaal waxaan uga dhan warbixintii la xiriidhay dadka habeenkii dhafra iyo talooyinka caafimaad ee loo soo jeediyey oo aad kala socoteen channelka ama YouTube-ka Jubaland Media. mar kasta ahaw weelka Jubaland Media. waad mahadsantihiin daawadayaal.